gudniinka fircooniga la yiraahdo waa dhaqan gaalo dhaqan islaan ma aha ogaada hadda midda ayada qisaas iyo diyaana ka waajibi habarti gabadh xaabisa idna waa la xaabin gabdhaha muslimaadka in la gudo ma banaana naagta tiraahda waa kaafirad ninka ku taageerana waa kaafir billahi alazim kala u horeeyo lagu bilaa khitaanka al khitaan haduu rag iyo dumarba khitaanku dumarka waxa lagu ijmaacay in loo sunneeyo dumarka in la gudo inay sunno tahay baa ijmaac ku guntamay culimadu soo guuriyeen ama ragga asagu waxa la isku hayaa mawaajiba mise waa sunno raggu mawaajiba mise waa sunno jamaa min ahli ilm shafiiciyada kamidhiin imaam shafici asxaab kamidhiin iyo riwaaya an ahmad waxay qabaan inay waajib tahay ragga in la gudayo waa waajib dumarka in la gudana waa sunno in dumarka guditaankooda uu sunno yahay waa masalatu ijmaac ama ragga guditaankiisu waxa weeye ma sunna mise waa waajib baa la isku hayaa culimadu waajib ay ku tageen adilla badan bay daliishadeen hadii dumarka marka la gudayo lama ogolo meelka in la taabto xubanka yarkee batriga ayina carabtu annaguna daam Soomaaligeenu marka wax la cadeynayo waxbadan laga sarigan laba afka lagu dhufan hayaaye kintirka la yiraahdo yaa qaybta kale la goynaya wax kala gabadha in laga taabto lama ogolo ma ifanta warka fiqi baa la yiraahdaa marka ama qosla ama qoslina idinta Allah hadii gabadha xubankeeda meel kale laga taabto laga gooyo qisaas baa waajibaysa waxa gudaysa haday haweenay tahay intay goysiba idna laga goyn oo loo qisaas ama diya u waajibi haduu niyayo dhakhtar meelahan fadhiyo loo geeyo meel kale u gooyina diya laga qaaday bijmaac muslimiin lama ogolo meel kale gabadha in laga taabto inta yartan idin sheegnay baa kulligeed lama goynaya qaybta kora jaf laga siiray waa laga dhiijinaya maalinka gabadhan iskuulkeeda iyo madrasada aadaala rabaa gabdhaha daawacaysan ee isbitaalka la dhigayo ee dhigooda galaysan lama ogolo wax qaba ma jiro muslimiinta kamid ah la yuujad